السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمانتين walaalayal soo dhawaada waa muuqaal aan kaga hadlayno laba qodob oo dhaqaalaha ku saabsan oo horumar badan aad xagga dhaqaale kaga gaari kartid. Labadan qodob waa laba qodob ay isticmaalaan dhammaan dadka tujaarta ah Ilaahay maalka iyo hantida siiyay. Labadan qodob haddaad naftaada ku dabaqdid waxa xaqiiqa inaad gaari doontid horumar dhaqaale oo aad ku gaadhid isku filnaansho aad kaga maarantid baahida bini'aadanka iyo baahida shaqooyinka aan macnaha badan ku lahayn ee hadda waqtigaaga qaadanaya iyo in badan awoodaada kamid ah. Labadan qodob waxa weeye laba qodob oo haday saldhig u noqdaan dhaqaalahaaga ay xaqiijin doonaan inaad mustaqbalka gaadhid heer isku filnaansho aad ku yeelatid maal badan kana mid noqotid dadka tujaarta ah ee caalamka. Labadan qodob ayaan muuqaalkan gudihiisa ku sharaxaynaa. Fadlan ku soo dhawaada. إني ناديتك وسعيت إني استهديتك فهديت بالقرآن. marka walaalayal labadan qodob hadeen sharaxno waa laba qodob oo loo yaqaano luqadda qalaad assets and liability. Labadan qodob ayaa labada qodob ay ku kala dhaqmaan dhammaan dadka maalqabeennada ah ee maalgashadayaasha ah. Labadan qodob waxaan tusaale inagu ka qaadan karnaa qof kasta oo dhaqaale soo gasho $100, $1000, $10,000 intuu doono ha ahaato. Qofkaasi hadduu hirgeliyo shaxdan una isticmaalo labadan qodob waxa xaqiiqo ah inuu horumar dhaqaale xaqiijin doono. Marka maxay yihiin assets and liability? Markaan qaamuuska Soomaaliga fiiriyay assets waxa ii soo baxday oo ku micneeyay hanti, liability-na wuxuu ku micneeyay mas'uuliyad. Marka hadeen u soo sharaxno taa markaan micnaha ka soo tagno hadeen si technical ah u sii kala dhigdhigno fikradan waxa marka koowaad lagu soo qaatay aan in badan markii koowaad aan ka akhristay kana faa'iideystay book uu qoray Robert Kiyosaki oo ah maalqabeen maalgashada ah oo arrimaha guryaha iyo hantida dhaqaalaha noocaas oo kala maalgashada. Ninkan ayaa bookgiisaas waxa laga iibsaday ilaa dhowr milyan oo koobi ayaa sida la xaqiijiyay laga iibsaday. Waana fikrad aan ka faa'iideystay dad badan ay ka faa'iideysteen. Marka fikradan walaalayaal waxa weeye bookgaas waxa la dhahaa Rich Dad and Poor Dad. Dad badan oo idinka kamid ah daawadayaasha waxa laga yaabaa inay akhristeen ama si arkeen. marka fikradan waxay sharaxaysaa dhammaan qaabkaad dhaqaalahaaga aad u kala nidaamin lahayd ama si aad u kala uga fikiri lahayd. Tusaale ahaan dhaqaalahayna soo gala ama si lacagtan haysano waa laba qodob oo may ku bixinaa. Waa waxaan ku bixin karnaa wax inaga taga oo dhaqaalaha inaga kaxeeya oo liability ah oo waxba inagu soo celin. Marka waxyaalahan isticmaalo waa kharash inaga baxa. Kharashka inaga baxay waa liability. Midna waa assets oo kharashka aan bixino iyo lacagta aan bixino lacag ay nagu soo celiyaan. Marka waxaan isku dayayaa inaan idin sharaxo labada qodob qaababka ay maartay kala yihiin. Hadeen u guda gallo assets waa maxay? Assets ka tusaalayaashoodu waxa weeye waxa noqon kara guri, waxa noqon kara ganacsi business, waxa noqon kara maalgashi share ama shuraako waxa afka qalaad lagu yaqaano. Waxa noqon kara waxyaalo kasta oo cash flow ama dhaqaale ama hanti kugu soo celiya. Wax kasta oo dhaqaale iyo hanti ku soo xareeya oo maal gashatid oo lacag kugu soo celinaya waa assets marka koowaad. Tan labaad liability. Liability-gu waxa weeye wax kasta oo dhaqaale ka bixiya ama ka saara. Tusaale hadeen dhahno gaari cusub ayaad iibsatay. Gaarigaasi dhaqaale ayaa kaaga baxay ku soo iibsatay waa liability. Shidaal ayaa kaaga baxay oo maalin kasta ku bixisa waa liability. Maxay ahayday TV ayaa guriga ku yaala waa liability. oo waayo koronto ayaa kaaga baxda, waqti ayaa kaaga baxda, wax in wax kugu soo celiyo iska daayay kharash ayuu kala degaya. Mobilku waa liability. bil kasta lacag baad ku shubaysaa. waxa laga yaabaa hadda mobilka ku daawanaysid inaad 1 GB oo data ku soo shubtay lacag ayaa kaaga baxday. Marka waxyaalaha qaarna waa liability oo lacag ayay naga sii saaran, qaarna lacag ayay nagu soo xirayaan. Marka dadka fuqarada ah ama dadka jeebkooda dhaxeeyo dhamaantood waxa u badan dhaqaalahooda iyo maalkooda waxay geliyaan waxyaalaha liability-ga ah ee dhaqaalaha ka kaxaynaya ka soo saaraya. Halka dadka tujaarta ah ee lacagta haysta ama dhaqaalaha badan Ilaahay siiyay ay geliyaan lacagtoodaas ama ma ay ku maalgashanayaan waxyaalo assets ah oo iyaga u shaqeeya lacagna ku soo celinaya. Tusaale maxaan oran karnaa gurigu waa wuxuu noqon karaa assets, liability-na wuu noqon karaa. Sidoo ku noqon karaa wuxuu ku noqonayaa haddii aad guriga aad degan tahay oo $500 kugu kiraysan yahay waa liability, lacag ayuu kala baxay. Haddii aad adigu guriga aad maal gashatay oo dhistay waa assets
oo yani kaba soo qaadad baa karaystay $500 ayaa bil kasta ka soo gasha marka $500 ee ka soo gashay lacagta kugu soo celinaysa waxa weeye waa assets weeye marka waxaan rabaa halkan inaan idinku sharaxo qaabkii aad yani hantidiina aad uga dhigi lahaydeen mid assets idin noqoto oo dhaqaale idinku soo celin karta waxaan hadaba u baahanahay qof kasto inaga mida qof uu shaqeeyaa qof waxba loo soo diraa lacag baa loo soo diraa qof kasta si lacag ku soo gasho waxa dhici karta inay lacagun ay soo gasho waxa dhici karta dad maaliyad haysto ilaahay wax siiyay oo dhaqaale haysta inay kula dhasheen oo yani ku maalgelin kara dhaqaalana ku sameyn kara marka hantida in soo gasho inaga Soomaalida waxay nagu badan in ay nahay dad liability dhaqaalahoodii uu ka baxo ama se yani wax dhaqaalahan macna lahayn ku bedesha tusaale ahaan gabadha Soomaaliyeed marka $5,000 soo gasho ama marka $2,000 soo gasho waxa laga yaabaa in tiraado sariir baa sanadii taale waan bedelaya dahba iyo waan bedelaya oo yani wax dhaqaalihi ka saaray ay lacagtii ku maalgeliso waxa dhici karta ninka Soomaaliyeed shaqeeya ee gaariga wada ee trip kasta qaadanaya $100 inuu dhaqaalihiisi qaad ku bixiyo liability ay lacagtiisa kaga baxdo marka walaalayaal waxaan u baahanahay in hantida inaga baxaysa aan yareyno dhaqaalahan inaga baxa ee waqti kasta inaga baxaya ay ka joojino kuna bedelo assets inoo shaqeynaya tusaale maxay assets kaasi yahay $10,000 ayaad haysataa $10,000 intii aad yani gaari qurux badan oo $5,000 ku gadi lahayd $2,000 laptop ku gadi lahayd $1,000 mobile iPhone ku gadan lahayd yani waxyaalahaas liability-ga ah ee ka baxaya inta $10,000 ku gadi lahayd hadii aad adiga ama si qof kale oo saaxiibkaaga 10 kale isu keentaan $20,000 aad ku iibsataan guri nus ah ama se guri aad ku dhisataan waxa laga yaabaa bishii $200 in gurigaasi kira ah idin ka soo gasho $200 sanadkii maxay noqonaysaa waxay noqonaysaa $2,400 marka gurigii hantidiina lacagtiina kaamay tagin oo hantidii wad leedahay oo waa ku joogtaa lacagna sanadka uu ku shaqeeyay hadii meel gaar ah lacagtiisii la dhigo uu ku soo saarayay $2,400 ayuu kugu soo kordhiyay marka assets ku waxa weeye wax kasta oo cash flow kugu soo celiya ama se yani dhaqaale kugu soo xireeyo weeye marka waxyaalahaas oo kale maxaa kamid ah sheerarka imse shirkadood ayaa share furay oo sheerarkoodii hadda maanta laga yaabo qof 10 sano ka hor $5,000 ama $3,000 gashaday ay maanta dhaqaalihiisii marayaan $100,000 $200,000 $500,000 qaarkood ay marayaan shirkadahan aad maanta wada isticmaashaan ee Telesom Hormuud Golis Amal waxaan oo dhan wada sheerar ayaa lagu furay Soomaaliyeed shirkadahan gaasasta ka shaqeeya shirkadahan maartay shirkado badan ay garanayno aan soo koobi karin ayaa dhammaan sheer dad laga qaaday lagu furay ama se shuraaka lagu yahay shuraakooyinkaasi maanta waxa laga yaabaa shirkadaas markay ku bilaabatay $500,000 ama milyan ku bilaabatay dhaqaalaheedina uu marayo $200 milyan dadkii sheerkoodaas $200,000 ku bilaabay shashanta laga qaaday in iyaga maanta $200,000 sheerarkoodu marayaan tusaalihii ugu dambeeyay sheerkii furnaa waxa kamid ahaa sheerkii dahabshiil ay ka furtay magaalada Muqdisho xarunteeda Somtel oo ay tahay isgaarsiinta oo kale marka bulshada Soomaaliyeed sheer ay u furtay oo ah inay maartay telecommunication-ka ay maal gashan karaan waxa dhici karta 3 milyan kaas Muqdisho ku nool haday shirkadaas adeegyada iyo service-keeda ka helaan dhaqaalaheedina kor u soo kaco dadkii markan hadda bilowga ay ahayd ee sanadkii dhaweyd ama bilihii dhaweyd sheerka markuu furayay mulkiilaha dahabshiil dadkii sheerkaas kala qayb qaatay ee isdiiwaan galiyay in sanadkii faa'iido badan uga soo xasisho maalgelintii ay shirkadda ku sameeyeen marka walaalayaal waxaan u baahanahay waxyaalaha assets ka ah ee lacagta inagu soo celinaya shilinkeena yar inaan dhaqaalayno oo in ka dayno dalxiisyada safarada macna darrada ah maxay ahayday gawaarida la iska gadanayo la kala bedelayo waxyaalahaas wax dadka masaakiinta ay ku dhaqmaan wadadka lacagta haysan waa qaabkii u fikraan weeye ninkan dhaqaalaha haysta ee hantida haysta wada aragtay ragii maaliyadda haystay ee dhaqaalaha badan haystay hadda tusaale ah ee magaalooyinkeedin la jooga dahabshiil Telesom waxa tiraahdaa maxay ah Hormuud dhammaan shirkadaha Soomaaliyeed maalin ka dambe waxaad maqlaysaa shirkadii Golis ba waxay iibsatay korontooyinkii Boosaaso oo dhan waxa weeye hal shirkad bay ka dhigtay waxaad maqlaysaa dahabshiil ba waxay iibsatay
shirkadihii korontooyinka maxay ahayd magaalo hebel waxaad maqlaysaa telesom baa waxay maal gashatay gaastii berbera oo samgaas oo kale iyadoo hadda wada gada marka waxaan oo dhan maxay u sameynayaan waxay shirkadahan waaweyn iyo dadka maaliyadda lacagtoodaas miyay gawaadhi cusub oo qurux badan magaalooyinkeeda kula marmaraan oo gataan ma gadanayaan waxay gadanayaan assets ama hanti lacag ku soo celisa marka lacagteena aynu uga fakarno waxaad oran kartaa waxa weeye $500 baan haystaa $500 kulli way ga burbur lahayd aan maartay TV ba saga gadanaya ama mobile ba saga gadanaya waxa ku dhaanta $500 adigoo shan kale maartay yani biiriyo ku dara $100 oo gaari yar oo saabun qobaysa taksiila kaga dhigta oo gaariga yar service fiican ku bixiyo oo sanadkii intaas oo ku shaqeeyo dhanba dhaanta marka waxa isku daydaan maaliyadiina ama dhaqaalihiina inaad walaalayaal yani waxyaalo waxay ku soo celinaya oo hantiidin ku soo celinayo assets ah inaad ku maal gashataan waxyaalahaas waxa kamid ah in soo sheegnay ganacsiyada sheerarka ah waxa kamid ah guryaha la kiraysto ama la sii iibiyo hantida ma guurtada ah waxa kamid ah beeraha waxa kamid ah maxay ahayd tusaalayaal badan yani businessyada kala duwan oo dhan ba kamid ah waxyaalaha dhaqaalaha kugu soo celiya marka inta waxyaalaha diristaan assets ganacsiyeedna ka dhiga insha Allah muuqaalkii walaalayaal maanta halkaas ku soo gabagabeynayna marka muuqaalkaas wuxuu ahaa liability and assets bin kaga hadlaynay waana muuqaal maartay qofkii dabaqa oo insha Allah faa'iido badan ka xaqiijin doono ugu dambeyn walaalayaal waxaan rabaa inaan halkan dhammaan walaalihii la soo xidhiidhay qaar badan oo idinkeeda kamid ah waa inuu soo jawaabay qaarkii kalena insha Allah markaan channel ayaan soo jawaabaya waqtiga ay igu xidhiidha oo waxa weeye jaamacad iyo shaqo ayaan badi ku jira hal maalin baan channel halka maalina muuqaalka ayaan idin diyaariyaa sidaa daraadeed waxaan jeclahay walaalaha maartay rabaa inay la soo xidhiidhaan inay Instagram-kayga igala soo xidhiidhaan halkaas aan dadkii oo dhan uga soo wada jawaabay email-kana qaar baan uga soo jawaabay laakiin badi channel-ka maadaama aan busy ahay Instagram-ka ayaan u helaa aad iyo aad baan salaamaya waxaan leeyahay waa muuqaalkan iyo muuqaalka xiga insha Allah